wiilalka nagala socotaan waa barnaamijka wararka maanta oo si toosan kaga imaanaya telefishinka Global Somali TV studio-hana ku leenahay magaalada London. waxaanu barnaamijka ku soo qaadanaa warbixino kala gedisan oo ku saabsan dhacdooyinka caalamka. warbixinta waxaanu si gaar ugu eegaynaa dhibaatooyinka isdaba jooga ee ay wajahayaan shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala ama weli ku sugan gudaha magaalada Gaza iyo guud ahaan dhibaatooyinkii loo geystay burburka baahsan ee gaaray magaalada Gaza. maadaama warbixintaanu si gaar ah aynu ugu eegayno shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala gudaha magaalada Gaza, waxaanu u kala qaadaynaa saddex qaybood warbixinta. qaybta koowaad waxaanu kaga hadlaynaa dhibaatooyinka isdaba jooga ee ciidamada Israa'iiliyiintu iyo weerarada ay u geysanayaan goobaha caafimaadka ay ciidamada Israa'iiliyiintu burburiyeen ama dhibaatada ay u geysteen iyo guud ahaanba tirada inta isbitaal ee ilaa iminka ay weerarka ku qaadeen laga soo bilaabo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2023. qaybta dhexe warbixintan haddii beedno waxaanu kaga hadli doonaa shaqaalaha caafimaadka ay dileen sida bareerka ama tooska ay u dileen ciidamada Israa'iiliyiintu, shaqaalahaas oo iskugu jira qaybaha kala gedisan ee bahda caafimaadka. halka qaybta saddexaad aynu kaga hadli doono burburka baahsan ee gaaray isbitaalada ku yaala magaalada Gaza iyo weliba kuwa ay xireen ciidamada Israa'iiliyiintu oo burburka loo geystay iyo weerarada lagu qaaday dartood ay u xirmay ama gabi ahaanba u joogsaday inay u adeegaan bulshadii maadaama weerarada lagu qaaday la burburiyey ay ciidamada Israa'iiliyiintuna ay burburiyeen. qaybta hore warbixinta haddaan aan bilaabo oo dawadaashaanu jecelnahay inay mar walba fikradoodii iyo farriimahoodana ay qaybta hoose shashada barnaamijka nagala wadaagaan si barnaamijyada iyo warbixinada soo socda aynu ugu soo qaadanno hadda wixii markaa ay xiiseynayaan. maadaama aynu ka hadlayno shaqaalaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta iyo weliba shaqaalaha caafimaadka dunida inteeda kale ka tagay in badan oo kamid ah geesiyaalaha ka shaqeynaya isbitaaladii magaalada Gaza iyadoo xaaladdu adag tahay weerar isdaba joog ah ee ciidamada Israa'iiliyiintu ay la beegsanayaan dadkaas oo la oran karo waa shaqaale caafimaad oo nafti hurayaal ah oo iyagu shaqadoodii qaarkood wadamada dunida ka tagay meelo nabad ah si ay u caawiyaan dadka dhibaataysan ee ku go'doonsan magaalada Gaza. marka warbixintan qaybta hore waxaanu kaga hadlaynaa tirada guud ee weerarka ay ku qaadeen ama tirada guud ee isbitaalada ee ay ciidamada Israa'iiliyiintu weerar ku qaadeen. waxa ilaa iminka ama goobaha caafimaadka iyo isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Gaza tira koobka ilaa iminka lahayo waxay gaarayaan 30 isbitaal iyo 30 goobo caafimaad oo intooda ugu badan yihiin isbitaallo oo ay ciidamada Israa'iiliyiintu weerar la beegsadeen. weeraradaas oo xilliyo kala gedisan, waqtiyo kala duwan, maalmo kala gedisan iyo taariikho kala duwan ba dhacay laga soo bilaabo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. marka isbitaalka ugu badan ee ay weerarka ku qaadeen ciidamada Israa'iiliyiintu waa isbitaalka Al-Shifa Hospital oo isbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada Gaza. waxaana isbitaalkaas kaliya ay weerareen 12 jeer ee ciidamada Israa'iiliyiintu ay weerareen. waxa ku xiga isbitaalka weyn ee la yiraahdo Al-Quds Hospital oo ciidamada Israa'iiliyiintu ay weerareen 9 jeer. waxa ku xiga isbitaalka caanka isna la yiraahdo Indonesian Hospital ee ku yaala magaalada Gaza oo ciidamada Israa'iiliyiintu iyaguna ay weerareen 9 jeer oo iyaguna isku xiga. marka hal isbitaal kaligiis markii 12 la weeraro mid kala 9 jeer la weeraro mid kala 9 jeer la weeraro aan ognahay in isbitaaladu ay yihiin goobo lagu dabiibayo lagu daweynayo dad soo dhaawacmay dad ay xaaladooda u dhaxayso nolol iyo geeri. waa dareemi kartiin xanuunka ay leedahay isbitaaladii waxa ku sugan ama muxuu ahaa lagu daweynayaa dad kala duwan caruur iyo ciroolaba rag iyo dumar. marka xanuun gaar ay leedahay. isbitaalada kale ee ciidamada Israa'iiliyiintu ay weerareen waxaa kamid ah isbitaalka Nasser Hospital, isbitaalka la yiraahdo Al-Rantizi Children Hospital ee caruurta isagu qaabilsan, isbitaalka kale la yiraahdo Al-Nasri Pediatric Hospital oo isaguna ku yaala magaalada Gaza. isbitaaladaas waxay weerareen ugu yaraan 3 jeer ayay weerareen ciidamada Israa'iiliyiintu oo ay weerar toos ay la beegsadeen, mararka qaar gantaalo ku dhufteen, mararka qaar ay xoog u galeen gudihii isbitaaladaas oo ay shaqaalihii qaar kamid ah iyo dadkii ay afduubteen qaarkoodna ay dileen. marka qaybtan hore waxaanu kaga hadlaynaa ilaa iyo 30 isbitaal iyo goobo caafimaad oo kala gedisan oo ku yaala gudaha magaalada Gaza ayay ciidamada Israa'iiliyiintu weerareen. weeraradaas iyo muxuu ahaa burburintaas iyo dhibaatadaasna ay keentay in ay saameyn ballaaran ku yeelato bulshada ku nool gudaha magaalada Gaza. marka isbitaalka ugu badan ee weerareenna isbitaalka Al-Shifa Hospital oo saan sheegay 12 jeer ugu yaraan ay weerareen. tirada guud isbitaalada ay ciidamada Israa'iiliyiintu weerareen ee ku yaala magaalada Gaza waa 30. qaybta labaad ee warbixinta haddaan u gudbo oo run ahaantii sidaad ogtihiin xanuun gaara nagula dhammaanteen dadka muslimiinta ah dhibaatada joogtada lagu hayo. shaqaalaha
caafimaadka ama bahda caafimaadka ee ka shaqaynayay ka howlgalayay gudaha magaalada Gaza ee la dilay ciidamada Israa'iiliintu ay dileen tirada guud waxay gaaraysaa 192 waa shaqaalaha guud ee bahda caafimaadka ama shaqaalaha caafimaadka qaybaha kala gedisan ee caafimaadka iyagu qaabilsan ay ka shaqeynayeen magaalada Gaza ee weerarada isdaba joogga ay ciidamada Israa'iiliintu la beegsadeen waxaa la dilay ilaa iyo tirada inta iminka loo yahay 192 iyadoo tiradaas ay sii kordhi karto marba marka ka dambeeya waxayna iskugu jireen ilaa iyo 65 kamid ah shaqaalaha dhintay ee 192 65 kamid ah waxay kalkaalisooyin caafimaad ama kalkaaliyaal caafimaad bay ahaayeen 29 kamid ah waxay dhaqaatiir 24 kamid ah waxay dadka farmashiistayaasha 20 kamid ah waxay ahaayeen muxuu ahaa shaqaalaha gurmadka degdega oo ognahay iyagoo gawaaridii ay ku qoran tahay calaamadii inuu ambulance yahay shaqaaliye caafimaadka yihiin dharkoodii shaqaale caafimaad uu yahay qorye aan wadanin sariirihii dadka lagu qaadiyay watay ayaa haddana ciidamada Israa'iiliintu ay dilayeen marka taas ayaa wax laga naxaa waxyaabaha kale dadka la dilay kamid waxa ku jiray 17 dhaqtar oo xagga dentistayaasha oo maaragtay ilkaha qaabilsan dhaqaatiirtii lab technicianska ahaa oo muxuu xagga shaybaarka ahaa medical students arday ayaa ku jirta 11 waad dareemi kartaa marka ardaydu jaamacadaha sanadaha ugu dambeeya ay jiraan waa kuwa caawiya weliba xaaladan oo kale loo baahan yahay inay tagaan isbitaaladii caawiyaan dhaqaatiirtii waaweynaha magaca laha wax ka bartaan isla markaana ay qayb ka ahaadaan badbaadinta dadkooda si maaragtay loo dabiibo dadka aadka u tirada badan isbitaalada ku jira qaarkoodna bannaanka isbitaalka jiifa maadaama sariiro loo waayay marka guud ahaan tirada shaqaalaha caafimaadka ee ciidamada Israa'iiliintu ay dileen 17 bishii Oktoobar sanadkii tagaan iraahday 2023 waxay tiradaasi gaaraysaa 192 qof oo iskugu jira rag iyo dumar oo kala ahaa muxuu ahaa dhaqaatiir qaybaha kala gedisana ee caafimaadka kalkaalisooyin ama kalkaaliyaal caafimaad ama ahaadaan dhaqaatiirtii dentistayaasha sidaan sheegay iyo weliba qaar ka mid ah ardayda marka xanuun gaar ah ayay leedahay in dadkii aqoonta lahaa ee dhaqaatiirtaha ee dadka caawinayay in badan oo kamid ah Falastiiniyiin ahaayeen qaarkoodna wadamada kale caalamka dad naftooriyaal oo dhaqaatiir oo yimid oo raba inay caawiyaan dadkaas dhibaataysan way jiraan laakiin inta ugu badan ay yihiin dhaqaatiir Falastiiniyiin ayagana ay ciidamada Israa'iiliintu ay dileen beegsadeen isla markaana in badan oo kamid ah hay'adaha xuquuqda u dooda shaqaalaha caafimaadku ay si toos ah ay u dhaleeceeyaan inkastoo dhaleeceen arrintu ay ka weyn tahay iminka Israa'iiliintu ay si dheg marnaba jalaq u siineen in ka badan 27,000 maanta sii cagacageynaysa tirada dadka Falastiiniyiinta ee ciidamada Israa'iiliintu dileen tan iyo 7 bishii Oktoobar sanadkii tagay marka u maleemayo cambaareen walbo lagu sameeyay inay u joojinayaan balse dadka masaakiinta walaalaheena muslimiintana ilaahay badbaadiyo qaybta saddexaad ee warbixinta waxaynu ku eegaynaa isbitaaladii xirmay magaalada Gaza oo magaalo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah dadka marka Falastiiniinta ee go'doonka ku ah magaaladaas ee ciidamada Israa'iiliintu kor bad iyo berri dhinac kastaba ay ka maamulayeen oo ay yiraahdeen waxa soo galay gudaha magaalada mar walba inuu ogaano oo ay ku heesteen tan 2017 xanibaad dhan kasta ay magaalada saareen ayaa waxa xusid mudan in haddana ay magaaladu ahayd magaalo leh goobo badan oo caafimaad iyo isbitaallo weyn maadaama dadku ay badan yihiin cabirka dhulka yar oo dadkii lagu hayaa laakiin dadku waa badan yihiin waa 2.3 milyan oo qof oo magaalo ku wada nool marka waxaa iminka xirmay qaybo ka mid ah burbureen isbitaallo gaaraya ilaa iyo 21 tirada guud isbitaallada ku yaal magaalada Gaza 35 baa la sheegaa oo 30 ka mid ah ay ciidamada Israa'iiliintu la beegsadeen muxuu ahaa gantaalo weeraro iyo weliba mararka qaar ay gudaha u galeen weliba dhawaanahan maadaama ciidamada Israa'iiliintu ay gudaha u galeen magaalada Gaza marka 21 ka mid ah shutdown bay ku sameeyeen gabi ahaan buu xirmeen sababta weerarada ciidamada Israa'iiliintu ay weerareen ayaa sababay in 21 ka mid ah isbitaalladaas ay noqdaan kuwa xirma maadaama ay burbur gaareen sahaydii iyo wax kastoo marka u baahnaayeen aysan haysan daawooyinkii ay go'een korontadii mararka qaar ee go'da intii ugu horreysay ciidamada Israa'iiliyiintu ay gooyeen iyo maamulkooda iyo madaxdooda marka 21 ka mid ah isbitaalladii iyo goobihii caafimaadka waaweynaa oo ku yaala magaalada Gaza ayaa gabi ahaan burburay iyadoo tirada guud ee isbitaalladii goobaha caafimaadka waaweyn magaalada Gaza lagu qiyaasinayo 35 ilaa iyo 36 goobood marka 21 markay xirmato waxa soo haray oo kaliya
و15 ilaa 14 isbitaal oo goobo caafimaad oo la rabo inay daweeyaan intaasoo kun oo qof oo caruur iyo cirool leh oo ku soo dhaawacmay gantaalahaas ciidamada Israa'iiliinta ee magaalada iyo duqeymaha ay ku wadaan ciidamada Israa'iiliinta magaalada Gaza. Marka warbixintan oo ku saabsan shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala gudaha magaalada Gaza, dhibaatooyinka ay wajahaan maalinlaha dhaqaatiirta nafti horeeyaasha ee Falastiiniyiinta aan ahayn dunida kale ka tagay muxuu caawinaya dhaqaatiirta kale ee howlgalaya inkastoo tiradu ay yar tahay oo wadamada qaar hadday ahaayeen lagu wada ordi lahaa haddana laakiin dhaqaatiir geesiyaal oo nafti horeeyaal ayaa jira oo tagay dhulka reer Falastiin magaalada Gaza ogna in daqiiqad kasta ay dhiman karaan iyagoo ku mashquulsan inay badbaadiyaan naf kale iyo dad kale oo dhibaataysan oo soo dhaawacmay oo caruur iyo ciroolo leh oo reer Falastiin shacabka magaalada Gaza. Marka warbixinta waxaanu ku soo koobaynaa in tiradu ay sii kordhayso. Intaan waa inta iminka la og yahay. maalinba maalin ka dambaysa tiradu way isbedelaysaa, nasiib xumo ama nasiib darro tiradu way sii kordhaysaa, taasoo macnaheedu yahay inaynu maqleyno warbixino cusubna ay ka imaanayaan magaalada Gaza oo ku saabsan in dhaqaatiirtii la dilay sii badanayaan, ciidamada Israa'iiliintu dileen, kalkaaliyaal badan ay sii dileen, goobo cusub ay burburinayaan oo ah goobihii caafimaadka. Marka dhinac kasta marka laga eego waxaa sii kordhaya xanuunka iyo dhibaatada ay ciidamada Israa'iiliintu ay ku hayaan magaalada Gaza, taas oo saameyn ku yeelatay kaliya maaha dadka ku nool magaalada Gaza, dunida muslimka iyo caalamka intiisa badanba, balse aanu rajaynayno dadkeena una duceynayno walaalaheena reer Falastiin in Ilaahay uu ka badbaadiyo dhibaatooyinka isdaba joogga iyo weeraradaas ee ciidamada Israa'iiliintu ku hayaan. Warbixintaas intaas ayaan kusoo koobayaa oo aad kala socoteen barnaamijkeena wararka maanta. Mar walbana barnaamijkan wararka maanta aanu kusoo qaadanayno warbixino maalinla oo daawadayaasha meel walba caalamka joogaan oo warbixinada dhacdooyinka iyo waxyaabaha ay aaminsannahay inay saameyn ku yeelanayso bulshada Soomaaliyeed, ama ha noqoto wararka Soomaalida iyo warbixinada Soomaalida, ama ha noqoto warbixinada kale caalamkaba aynu la wadaagayno daawadayaasha meel walba caalamka joogaan. haddii ay beedmo waxaadna kala socotaan barnaamijkan wararka maanta telefishinka Global Somali TV, waxaana ila socodsiinaya anigu Maxamed Siciid Saxaaf. sawirkaas iminkaad aragtiin waa gantaal iyo weerar ku dhacay isbitaalka Al-Shifa ee ku yaala magaalada Gaza bartamaheeda. Waa isbitaalka ugu weyn, waana isbitaalka 12 jeer ee ciidamada Israa'iiliintu weerar la beegsadeen, maadaama dadka ugu badan lagu daweynayo isbitaalada ku yaala magaalada Gaza uu yahay isbitaalka Al-Shifa midka ugu weyn. Marka warbixinadani warbixino kale insha Allah tacaala wax walba soo kordha halkaan aad kala socon doontiin. fariimaha iyo fikradahana fadlan qaybta shaashada barnaamijka nagula wadaaga. haddii aad ku jirtid baraha bulshadana waxaanu jecelnahay inaad nagu soo biirtid daawadayaasha meelba caalamka joogaan. waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.